Assalaamu calaykum. Waxaan ka hadlaynaa qisada guusha ninka ugu qanisan qarnigan. Waxaa lagu magacaabaa Jeff Bezos. Ku soo dhawow channelka Tigsifo. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar channelka si ay kugu soo dhacaan muuqaalada aan soo dhigno. Jeff Bezos wuxuu ku dhashay dalka New Mexico, magaalada Albuquerque, sanadu markay ahayd 1964. Markii uu dhashay Jeff, waalidkii waxay ahaayeen daayar. Kadib dhalashadii Jeff, 17 bilood kadib waa ay kala tageen. Marka hooyadii waxay guursatay nin kale, waxayna korsadeen Jeff. Xilligii uu dhiganayay dugsiga sare qayb ka mid ah waqtigiisa, wuxuu ka shaqayn jiray McDonald's qaybteeda samaynta rootiga, wuxuuna ahaa ardayga ugu fiican iskuulka. Markii uu dhameeyay dugsiga sare, wuxuu isqoray jaamacad si uu u noqdo theoretical physicist, laakiinse kuma uusan qancin qaabka ay wax u socdaan, waxaana uu awoodi kari waayay inuu sii wado. Waxaa ku adkaatay xalinta xisaabaadka. Xisaab uu ka shaqayn waayay 3 saacadood. Ardayga isku kulliyad yihiin ayaa hal daqiiqad u xaliyay xisaabtii. Maalmo kadib waxa uu dareemay inuu ku fiican yahay kulliyadda computer science. Wuxuu go'aansaday inuu bedesho kulliyadda computer science. Qalin jebintii jaamacadda kadib, Jeff waxaa u soo baxay shaqooyin fara badan, laakiin horaantii 9-meeyadii internetka aad baan loogu soo badanayay. Jeff wuxuu u arkayay fursad uusan dhaafi karin, sidaa darteed waxa uu isaga tagay shaqadiisii mushaarka fiicneed si uu buugaag ugu iibiyo si online ah. Qof kasta waxa uu u maleynayay inuu waalan yahay. Wuxuu la kulmay khasaaro iyo guuldarooyin aad u badan, laakiinse wax dan ah kama gelin. Wuxuu lahaa aragti dhisidda dukaan aad u baaxad weyn oo lagu magacaabo Amazon. Guuldarada ma ahan lidka guusha, ee waa qayb ka mid ah guusha. Wadada guusha loo maro waxaa ku daadsanaan kara qodxo badan. Marka xiro kabaha adag ee lagu magacaabo sabirka, waxa aad hiigsanayso oo aad ku riyoonayso 24 saac ayaad noqon, waadna xaqiijin. Guuldaro walba waxaa ka dambaysa guul. Markii aad go'aansato inaad bilowdo hawl, markaas ayay wadooyinka kuu furfurmi. Gufitaanku wuxuu daliil u yahay inaad socoto. Weligaa ma maqashay qof fadhiya oo turanturooday? Weligaa ma maqashay qof fadhiya oo kufay? Maya dabcan. Qof walba guulaystay maalin buu sidoo kale ahaa amaba ka sii darnaa. Guushu waa inuu fashil ku dhiibo, laakiin aadan isdiibin. Aadan lumin xamaasadaada. Fashilka ama guuldaradu waa wadada guusha loo maro. 1994 ayuu aasaasay shirkadani ku suntan magaca webiga ugu dheer caalamka. Sanadkii 1997 Amazon waxay faa'iiday bilaayiin dollar. Ugu dambeyn Amazon aad baa loo balaariyay, waxaana loo bedelay goob lagu iibiyo wax kasta oo maankaaga ku soo dhaca. Hadda Jeff Bezos waa shakhsiga ugu hantida badan dunida, gaar ahaan qarnigan, waxaana hantidiisa lagu qiyaasaa 193.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Jeff Bezos hantidiisa waa mid aad u ballaaran, sida ay sheegaan dadka arrimaha ganacsiga ka hadla. Wuxuu maalin walba qarash gareeyaa in ka badan 100,000 oo dollar. Hantidiisa inta badan wuxuu ku bixiyaa sida la sheego inuu ugu kaalmeeyo dadka masaakiinta ah. Laakiin ma ahan qaabka aad u fikirayso. Ma ahan inuu sadaqa ahaan u bixiyo, ee waa inuu shaqo abuur badan u sameeyo dad badan oo daafaha dunida u kala nool. Wixii rag u qasdo, Rabbina aqbalo waa rumoobaan. Wassalaamu calaykum.